عبد السلام ويديي محو وباق ذا قروي إنكو فلنا جرتو dadkuna hadda inay meel wada aadaan muhiim ah dad ku filan oo madax iyo siyaasiyiin iyo mucaarad hadii la rabo hadii madax maamul goboleed la rabo hadii kuwi dawladda federaalka la rabo intii ku filan waa jirtaa in la wada aado meesha loo buuxo dadka dhan ay jiraan muhiim ah anaga waxaan rabaa idinka inaan la joogno in la hadalno dawladda aan waardiyeyno hadday xadgudub samaysaa u sheegno meesha inaan joognaa rabnaa dawladda isha ku hayno oo laga wada tegin goobta ayaa muhiima waa maasantiis maxamed cali aan ku bilaabayaa wuxuu yidhi maxamed cali musharaxiinta ma cabsanayaan sidii gabdhaha loo xabadeeyey may ka baqayaan may soo baxaan su-aalna qabato waaye laakiin waxaan kugu bishaaraynayaa shirkeen inoogu dambeeyey ee midooda golaha midooda musharaxiinta oo yeeshay waxaan go'aaminay mudaaharaadka soo socda annaga inaan hogaamino waqtigiisa waa lagu soo sheegaa meesha ka dhaca waa lagu soo sheegaa dawladdana waxaa ka rajaynaynaa barnaamijkaas nabadda ah inay ogolaato wuxuu ka dhibaa lama arko waxaa la cabirayaa dareen ku aadan doorasho la isla ogol yahay oo dadku ku wada qanacsan yihiin inay dhacdo si loo helo cidda ka soo baxdaa cid la ogol yahay sidii maxamed cabdulaahi farmaajo 2017 loo ogolaado kale qofkii ka soo baxa in la ogolaadaan rabnaa mudaaharaadkaas annagaa hogaaminayno horkacayno waana la soo sheegi doonaa meel kasta warbaahinta ka midana waa ku soo sheegaynaa marka maxamed lama cabsanin dadkaana ma cabsadaan hadda ka horna ma aanan cabsanin markii nala soo weeraray oo nala xabadeeyo dhalinyarada nala ka laayay oo jid kasta nala ka xiray waxaa intaas in nala cabsi geliyaa la isku dayahay oo aan dalkan ka cararno waliba dee dad isdhahayeen qofkan meeshuu ka yimid xoogaa ayaanu qurbaagiisu ani qurbaagu aad u weyn ma ahayn xoogaa le diyaasbara soo joogo asdhaha ka waa carari doonaa oo diyaasbari ku noqonaa laakiin meelaha u cararnimada waa soo taaganahay hadda ka hor waxaa astaa maka almukarama soo dhex istaagay ayadoo 4 baabuur oo gaashaaman iyo ciidan uu dhex taagan yahay danna kama aanan gelin waxaasna waxaan u samaynayay dhalinyarada inaysan cabsanin oo aan la cabsiinin haddii lagu cabsiiyo waa lagu duleysanayaa waana wuxuu ambaasadorka sheegayay Malik bin Nabi oo sheegay alqaabiliya lil isticmaar la yiraahdaa dadka qaar waxaa jiro in la duleystay waxay u leeyihiin qaabiliyad waa u samaysan in la duleysto annaga Soomaaliya nahay duleysi waa Soomaali ma ogolo taariikhdeeda lagu ma hayo taasina ogaatiin waa runteed gabadhii su'aasha hiiraan i weydiisay waa runteed anaga ayadaba hiiraan aan ka nimid magaceedaan raadinayo habboon hiiraan soo dhawow waa run beledweyne waxa ka socda wax saxa maaha aniga waan sheegay bartayda facebookana waa ku qoray twitterkana waa ku qoray adduunka hadda media kuwaas oo noqday moogtahay haddana waa ku celinaya waxa hiiraan ka socda waa dulmi 30 dhalinyaro habeen dhow meel wada joogto activistiyaal la hadlay saana u dhiirigeli waxaan idin xaqiina si nabada ku raadsada safaaradaha ajnabiga qaar kamid ah ila soo hadlay marka arinta ka hadlay waxay dhaheen dadka community leaders ka mana wada sheekay karta hawa wada hadashiyay amisomna waa ugu baaqaynaa inaysan dadka awoodda caburinta loo isticmaalin laakiin reehiiraan midaan rabaa inaan u sheego amisom ya amrika horta ma taqaaniin madaxweynaha bis amrika midka hirshabeellana ma amri karo ka balowle joogana ma amri karo amisom oo socota daaragtiin amarka maxamed cabdulaahi farmaajo waa taasina ogaatiin waay amisom waa ugu baaqaynaa dadka inaan loo caburin dadka shacabka inaysan awoodda iyo mandate-ka security council-ka ay ku caburin dadka reehiiraan waxaan ku dhiirigelinaynaa xaqooda inay si nabada ku raadsadaan musharaxiinta iyo mucaaradka kale waxaan ugu baaqayaa meelaha dhibka ka jiro oo kale waa ka hadalnaa oo gedo ka mid tahay oo baydhabo ka mid tahay beledweyne hiiraanna waa inaan ka wada hadalno oo sida aan meelaha kale uga damqanayno ayadana waa inaan uga damqanaa Soomaali waa noo wada mid dawladdana waxaan leenahay sida aan leenahay gedo dhibka ka jooji beledweyne hiiraanna dhibka ka jooji amisomna waxaan leenahay magaca qarannimada Soomaaliyeed iyo mandate-ka baarlamaanka Soomaaliya iyo security council ku joogtiin ha ku dulminina awoodiina dadka waxaan rajaynaynaa hadda waxa la ii sheegay maalo inay magaalada ka baxeen markii hore ay jidadka xireen waxa waxa badeeyeen ay ahaayeen ciidanka dawladda federaalka waxaan u mar kale waxaan u baaqayaa war askari kasto ogow
dadka madaxda ee dalka hadda joogo beri markuu mandate-kooda dhammaado diyaaraday ka raacayaan cidda lala xisaabtamaya waa adiga cidda maxkamadda sugaysa waa adiga haddaad dadka xabadayso disho ama aad dhaawacdo midka la suga waa adiga wiilkii maaldhow dharcadka ahaa ee gabdhaha xabadaynayay dadka dhan waa yaqaaniin jid kasta cidda lagu sugaa waa asaga farmaajo hadday waqtiga ka dhammaado ama ra-iisul wasaare ama mid baarlamaan jooga ama wasiir amni diyaaraddii ay ku imaadeen ay kaa raacayaan beri adigale iyo dadka isku soo haraysaan dadkaada iska ceebeyn gabdhaha walaalaha iyo wiilasha walaalaha iyo shacabkaada ha xabadaynin hana dilin berina kaligaa ay ku sugaysaa xisaabtan aday kuu taallaa midii adduunkii midii aakhire labada waa maasantiin wasalaamu calaykum waxaa soo haray ninkii la yidhaahdo cabdullaahi mahdi waa run annaga waxaana laka rabaa dadka mucaarad iyo dowlad mu-ayid haddaan nahay labadaba sida ay u walwalayaan dadka qurba joogta waxaan ka naxaa aniga dareenkoodana waa run waa wax la tixgeliyo annagana marna afkeenna aniga ma xasuusto runtii iga cadaalad darre iga maaha qof mucaarada oo yiri dagaalaa loo noqona ama 9 loo noqona ama 8 loo noqona aniga ma maqal afkeyga kama maqal dhagteedu kuma maqal kulleeto dadka mucaaradka saasay tahana dhib kasta waa naloo geystay waqtiin aniga waa la soo weeraray askarteydii waardiinaysaa la dilay madaxweynayaasha xilka ugu horeeyay farmaajo diyaarad aan degaynaa ay khatar ku galeen oo lala xirtay waa qof kasta anaga kamid dadka mucaaradka markuu ugu yaraado jidaa laga xirtay ama laboorka meel un baa loo dhigtay wax qof hadda ka sameeyay falcelis tabanna ma jiro dadka dhan falcelis toganay muujinayaan sababtoo waxay aaminsan yihiin dulmigaan inuu waqti leeyahay madaxweynaha marka waqtigii uu diidan yahay wax kale ma doorashada dhaxaysa soo dhigo diidan yahay marka annaga waxaan ku kalsoonahay shacabkeena ama gudaha joogo ama dibadda joogo laakiin midaan ka naxsan oo cawada inii sheegaa waliba dadka qurbaha ka imaanaya ayagoo oo ku dhex nool dowlad sharcigeeda qaanuunka uu sareeyo rule of law la yiraahdaa siyaadat alqaanuun dhahan carabta ama sareynta sharciga kala dambeynta law and order-ka iyo rule of law-ga labay kala yihiin law and order-ka maxaa waaye sharciga inuu jiro waaye faransi fakiyama wuxuu dhahaa dowladaha dunida saddexaad intooda badan waxaa ka jiro rule by law laakiin dowladaha hormar maxaa ka jiro rule of law labay kala yihiin rule by law maxaa waaye kala dambeyn amniyaa jiro dowladahan dunida saddexaad oo dhan asaas ah laakiin sharciga ma sareeyo ninka xukunka haystaa sareeyo laakiin kala dambeynaa jirto maxaa la yidhaha marka rule by law aa la yidhahdaa loogii waa jiraa oo dadkii kala dambeyntii maxkamadihii booliskii garsoorkii nabadii waa jirtaa dowladaha dhan oo dunida saddexaad haa tagto waa saas iyo eeshii inteeda badan laakiin yurub maxaa ka jiro rule of law ka jiro maxaa waaye sharcigaa sareeyo oo adiga iyo ninka prime ministerka ama ninka madaxweynaha sharciga waa u simantihiin Donald Trump ama ninka la yiraahdo Boris Johnson fayl dacwo ka geysanaysa ninka qaadigana waa qaadaa dacwada laakiin dunida saddexaad madaxweyne ma dacweyn kartid qof madaxna ma dacweyn kartid laakiin kala dambeyntii sharcigii waa jira annaga labadiiba hadda gacanta kuma hayno rule by law ma jiro rule of law ma jiro laakiin waxaan rabnaa inaan labadaba isla helno sababtoo haddii rule by law nagu dhaco hadda kor nagu dhacay dowladdii la dumiyey rule by law ahayd ninka dowladda ahay sharci gacanta ku haystay laakiin maxaan rabnaa annaga sharciga inuu sareeyaan rabnaa marka qof qurbaha ku nool oo rule of law ku nool oo qaanuun iyo nabad iyo cadaalad iyo dimuqraadiyad ku nool wuxuu u durbaantubayaa nin ama madax xukunka dadka kula xadgudbaysa uu leeyahay jir ee jooga ku haya Britain iyo America iyo Sweden uu joogahayda ninkaas ama qofkaas ama kuwa ka yimidba madaxweynaha dee dalkaas ku noolaa Soomaaliya waxaan ka cabanayno asagii kala sareynta iyo sharciga iyo wali waxa la ii sheegay inuu dadka xuquuqda minoritiska transportation u doodo oo hajiri dadka oo laga tira badan yahay qof saas oo kaleeta ah yaa wuxuu rabaa inuu kugu dayo inuu adiga san ka duleeyo asagana muxuu ku nool yahay meel sharciga uu sareeyo ku nool yahay muxuuna rabaa qof inuu sareeyo taageersan yahay annagana maxaan dhahaynaa qof inuu sareeyo ma rabnaa waxaan rabnaa sharciga inuu sareeyo hadduu beri ka dega xukunka maxamed cabdullaahi ama ra'iisul wasaaraha ama baarlamaanka waxaan rabnaa inay sharciga dadka ula sinaadaan rabnaa oo ayaga naftooda aan la dulminin hadda intay joogaan aan la dulminin dhammaanteed aan u simanahay waxaan rabnaa sharciga aan u simanahay waa maasantii wuxuu yidhi abuukar yaasiin waa ka xumahay in beej aan leeyahay lagaa baloogay qolada dhalinyarada ah ee beejkayga maamusha qofkii naga soo horjeeda qofkii na aflagaadeeya qofkii na dhaliilaa
way maqlaysiin yaa la baloogin aniga kama shaqeeyo abuukar waxaa kuu bishaaraynaya facebook aniga kama shaqeeyo wax lee ku qoraa dhallinyarada oo ila shaqayso mar kastana waa u sheegaa cidnaha balooginaan ku yidhaahdaa yaan la baloogin waa ay maqlaysiin qofna yaan la baloogin waxaa soo raacoo kale maadaama dadka bejka iyo commentigareeya ama followerska 400 kun waa u malayna hadda dadka commentigareeya tiradii ka bateen aniga ma fiiriyo runtii mana eego laakiin dhallinyaradaas waa u jeediyaa biilkaas waxaanse rabaa inta inaan xuso oo arrin markasta inaan xuso u baahanahay saxaafadda madaxa bannaan ma aha cidda ay la xisaabtamayso dowladda keliya inay tahay maaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka guddoonkiisii iyo wasiirada keliya maaha saxaafadda madaxa bannaan waxaan ka rabnaa mucaaradkan ay la xisaabtanto oo waxay ku qaldan yihiin la sheego oo dhaliisha ay leeyihiin la sheego oo haddee wax dhibaaya dadka ay sheegaan la qabto marka mucaarad iyo mu-ayid iyo dowladba in lala xisaabtamaan rabnaa saxaafadda ay dhammaanteed maalin caasa markii aan nala kulmeen saxaafadda madaxa bannaan waxay ka sheegteen waxay dhaheen musharaxiinta qaarkood haddaad dhaliisho waa ku soo wacayaan maxaa iga rabtaa maxaa wax iiga sheege aniga saasay leeyihiin annaga qof walba wax laga sheego oo la dhaliilaan rabnaa ka xukunka u socda midka raadinaya midka hadda jooga isku si in loo dhaliilaan rabnaa annaga oo dadka ay u noqdaan dad u furan dhaliisha